بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. subax wanaagsan walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan waxaan rajeynayaa inaad farxad iyo caafimaad kusoo toosteen inta xanuunsanaysa allaha caafiyo inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo saaka waxaan idinla qaybsanayaa jadwalkii saakay subaxnimo iyo quraacda caruurta aan u diyaariyay insha Allah soo dhawaada idinla meel walba aad joogtaan saaka quraacdeena waa slice ayaan waxaan ku sameyn rabaa chocolate dhexda ka gelinaya korne ukun iyo rootiga shiidan aan uga sameyn rabaa insha Allah soo dhawaada walaalahayga qaaliga halkan waxa yaala 3 xabo ukun laakiin ukunta waxaan ka soo dhigi doonaa 5 xabo because rootiga dhanaa wada isticmaalaya waxaan kale halkan ku haystaa rootiga shiidan iyo chocolate-ka hadii ay sitid midka slice kala mariyo waa isticmaali kartaa laakiin waxa ku dareysa wax yar caano ah oo qandac ayaa ku dareysa kadibna waa ku qasaysaa soo u milti garoobo ama wax yar oo u dhalaalo hadii aadan haysanin chocolate-kaasna kawkawga ayaad ku sameysanaysaa sidii hore aan u soo geliyo anigoo sameynaayo chocolate syrup-ka sida guriga loogu sameysto rootiga waa jarjari doona insha Allah geesahan ka soo jarjaraya geesaha aan rootiga ka jarjarayna ma tuuraayo waxaan ka sameey doona insha Allah rootiga shiidan aan ka sameysanaya asagna la soo wadaaga insha Allah sidaan u sameysanayo laakiin hadda kama gaarayo insha Allah walaalahayga qaaliga ah waa quraac yar oo fudud caruurta bareegooda iskuulka u qaadanaya ma sha Allah aad u macaan caruurtana aad uga helayaan hadii aad horeba saa idinku sheegay waa ujeedaan ma sha Allah saas saxanka ugu soo shubtay rootigii waan soo dhameeyay meesha ugu hooseysay meesha ugu koreysa bisleeba ka reebaybo intii kale dhan waa soo wada jarjartay soo adeeg kugu xiran tahay qiyaasta isticmaalaysid aniga rootiga isticmaalayna wax midka supermarket-ka laga soo gaday ee waaweynka ah ayuu ahay ma ahayn midka yararka ah marka qiyaasta rabta isticmaali kartaa waxaan ku daray hal qaando oo si fiican aan u buuxin oo sokor ah ayaan ku soo daray ukunta waa u jeedaan 5 xabaan ka soo dhigay ukunta because way ugu yaraanaysaa rootiga dhan ayaa wada isticmaalaya walaalahayga qaaliga ah inta waxaan ku shubanayaa rootiga shiidan ayaan ku soo shubanayaa insha Allah slice waan soo fidinayaa sida jabaatiga oo kaleeto sidaas aan ugu shubayaa waxaan sameynaa ukunta ayaan geesaha ka marinaa soo ukunta aan marinayo wax yidis ayaa meel ku soo shubo doona si aan gooni uga dhigto oo insha Allah oo brushkana aan geesaha uga mariyo ukunta aan geesaha ka marinayso waxay kaaga saacideynaysaa inuu rootiga isqabsado oo isku dhago halka aad ka mari lahayd biyo ukunta ayaa geesaha ka marin halkan aan ku shubanayaa ukun yar si aan brushka ugu la marsado insha Allah rootiga markaas aan soo dhaxgeliyo waan ka bixinayaa tartiib xoog ha uga bixin uu ka dilaaci karaa sidaas oo wada marina insha Allah kadibna saxanka soo saaranaya waa kii labaad walaalahayga qaaliga ah waan fidinayaa sidaan u fidina insha Allah markaan fidiyo sida jabaatiga oo kaleeto ukunta geesaha ka mariyo ayaan dhaxdan waxaan uga soo shubi doonaa insha Allah chocolate-ka waa u jeedaan aniga waqti hore ayaan soo kacay waqti hore aad soo kacdi waa ka gaartaa inaad wax sameysatid laakiin hadii aad habeenkii late seexatid oo aadan subaxii waxba ka gaareynin habeenkii hore u sii sameyso insha Allah laakiin waa inaad time sameysataa hadii caruurta ee waqti hore iskuulka ku aadayaan waa inaad iyagu ka kacdaa aniga 11 saac iyo bar way baxayaan caruurta baska oo maanaya marka waa inaan u boobsiyaa waxa 9 saac iyo bar aan ka soo kaca si aan dhaqso waxooda ugu boobsiyo maalintii waa ka seexan kartaa 1 saacadood laakiin hadii aad daahdid halkaas waxa noqonaysa caruurtii inaad ka daahdid quraacdooda oo aad seexatid subax inaad soo kici weysid ay noqonaysa ana hadii aan habeenkii shaqeynayo oo habeenkii order iyaalo oo cake aan sameynayo habeenkii waqti iskuulka u qaadanayo hore ugu sii sameeyaa si subaxii igu fududaato waxyaabaha qaarna habeenkii iska sameystaa ma hadaa shaqaheyn xitaa waxyaabaha qaarna habeenkii subaxii aan sameeyaa hadii habeenkii daalan tahay wax ma qaba karto Soomaali bilaadan tahay marka waa inaad wax yar aan nasataa si energy oo jirkaada u helo markaasna soo kacda saasan ku soo dhameysana walaalahayga qaaliga ah rootigii dhan ma sha Allah
isla sidii aan ku waday waxaan filayaa inaad ka faa'iideen masha Allah rootiga yar ee fudud qasama inaad chocolate oo kaliya dhaxgelisaa qudaar dhaxgelin kartaa cheese oo dhaxgeli kartaa caruurta wax walba oo dhaxgeli kartaa masha Allah waa fudeed waa quraac masha Allah caruurta ay ka helayaan break caanahooda yarka ah ayaa hore u siinaysa masha Allah macbitaankooda waa quraac yar oo kaale iska arag ah oo break ah oo fudud waqti ka ma qaadanayso masha Allah ujeedaan kaale iska arag waaye fudeedka masha Allah walaalihiga qaaliga ah sidaasan ku soo dhameysanaaya rootiga insha Allah ilaa 4 xabo idin tusay inta kale waa soo dhameysanaa insha Allah markaan soo dhameysto ayaan isku soo laabaneynaa biidhnillaahi alkariim because saxanka dhan inta la dhameynaa waqti waa Soomaalian markaa soo dhameysana insha Allah markii aan soo wada dhameysto ayaa isku soo laabaneynaa maasha Allah walaalihiga qaaliga waa soo dhameystay oo ujeedaan saxanka sidaas oo soo safay hadaa rabtid wax yar fridge-ka gashan kartaa si uu kugu qaboobo laakiin ani fridge ma geli rabo sidiisa ku sameynaya marka juice-ka adiga wax yar darti fridge-ka ka saartaa hadaa sidiisa ku dubi kartaa saliida dabka soo saaray way soo kulaatay saliidii dabka wax yar aan ka gaabiyay saaid uma gaabin laakiin wax yar waan ka gaabiyay waan ku soo dubaaya insha Allah labadaas xabo ugu horeyn aan ku ridaaya markaan saas wax yar oo cabaar oo ku jiro waan gidinaaya lama sugaay in loo halkaas oo dhinac uu ka gaduuto marka dhankan hadana aan u gidiyo oo soo gaduuto ayaa dhankii hadaydi ko aan u saaray aan soo celi doona insha Allah sidaas oo soo dubaaya rootiga shiidan ayaa golden ka soo dhigaya iyo ukunta maasha Allah markii golden qurux badan oo ii noqday ayaan ka bixinayaa saxan ayaan tiish soo saartay waan saaranayaa wax yar ee saliid ku haray way ka baxayaan saliidna gudaha maba u galeysabo maasha Allah rootiga shiidan wuxuu ka difaacaa inay saliid gudaha u gasho sidaas ku soo wada walaalihiga qaaliga ah waa soo wada dubana insha Allah markaan soo wada dubto kulli aan isku soo laabanayna insha Allah kulli waa soo wada dubaya qaybtii labaad ayaa hadda marooya insha Allah qaybtii labaad oo ujeedaan masha Allah isla golden-ka ayaa noqonaysa kulli waa soo wada dubaa insha Allah markii aan soo dhameysto ayaan isku soo laabanayna walaalihiga qaaliga ah markii aan soo dhameeyay hadda waxaan caruurta u karinayaa mushaariye ay si cabaan subax horeeto qof waqtigaas baxay 12 saac iyo bar wax kale ma sii cuni karo soo waxaan u sameeyaa mushaariye u sii kariyay mushaariyadaas aan siinaya insha Allah wax yar macsanaha ugu daraa iyo wax yar cusbas wax yar sokor caanahooda masha Allah waa ujeedaan masha Allah baygi yaraay masha Allah slicekii aan soo dhaxgelinay chocolate masha Allah saas quruxda badan oo inoogu soo baxay markii aan kala jarno ujeedaan walaalihiga qaaliga ah wuu jilicsan yahay ma adko canug yar canug kale weyn wax canug kasta wuu cuni karaa masha Allah waan ujeedaan saas quruxda badan oo inoogu soo baxay masha Allah tabarakallah hadda waxaan ugu diyaari doonaa insha Allah wax yar inuu qaboobaan raba laakiin salaadii ayaa la aadaamay aadaanka aqankii ma dhicin la aadaankii labada dhacay insha Allah walaalihiga qaaliga ah soo waa inaad ku mashquulin adduunyo oo kaliya aakhiradaadana u shaqeysataa marka ilmaha u sii diyaarinaya brushka salaada oo kicina waa baxa insha Allah waxaan sameeyaa subaxa horeeto kooban ku soo shubaa cadayga waa soo dhaqaa biyo iyo cusbo ayaan ku daraa jeermiska iyo bakteeriyada waxa dhan ayuu ka dilayaa biyo kuleel iyo cusbo ayaan isku la daraa waa la sii dhigayaa hadhow canug walba markuu soo kaco brushkiisu ka baxsanaya meesha
walaaleyga qaaliga waa soo dukana insha Allah adkaar sabax markii akhrisanaysid waxaan ka soo degsataa Play Store-ka adkaar sabax waa masa abkan waxa ku jiro adkaar badan ku jira ujeeda ducada safarka la akhristo ducada marka la seexana la akhristo ducada qurbada istiqaarada ducada oo la akhristo hurdada ka hor waxa ku jirto adkaarta la akhristo marka oo janaasada la dukanayo adkaara badan ku jiro soo adkaar sabax ayaan aniga daara doona insha Allah daartu waa daarana daartu noo akhrisanaysa walaaleyga qaaliga waxaan usoo laabtay jikadii quraacda ilmaha ugu ridaya insha Allah walaaleyga qaaliga fiidiyogan halkaan ku soo gabagabay doona insha Allah waxaan filayaa inaad ka hesheen saaka jadwalkii aan subaxnimadii horeeta aan idila soo wadaagay insha Allah marka caruurta ay iskuulka aadeen kadibna asna waxaan idin ka soo sameey doona insha Allah fiidiyo labaad waan idila soo wadaagayaa